warbixintan waxaynu ku eegaynaa ujeedada dhabta ah ee safarka madaxweyne biixi sababta uu uga duwan yahay safaradii hore madaxdii Soomaaliland ku tagi jireen meelo badan oo Afrika iyo waxa isbedelay ee keenay in safarkaasi noqon sidii loogu talagalay ama laga filayay Soomaaliland tan iyo markii madaxweyne biixi ku qabsaday doorashadii naanaysaha badnay waxa sii kordhaya dildilaaca gudaha oo wax maara ah loo haynay oo dhinacyo badan jabhado dhowr ah oo gudaha Soomaaliland ka abuurmay is eeganaya awoodooduna si joogto ah u sii kordhayso dagaal beeleedyo dhiigbax iyo isaseeg bulsho ku riday Soomaaliland boqolaal ka mid ah ciidamada iyo saraakiishoodii oo ka goostay degmooyin baaxadda weyn ee Sanaag bari oo gaarkooda u tashaday dastuur la laalay xarig siyaasadeed hadbeelay oo cagajugleen iyo caburinisa lu tahay midnimadii iyo ishaysashadii bulshada oo meesha ka baxday beelaha wada degan oo midiba kan kale iska eegayo kala sarraysiin iyo kala sadburin bulsho oo waxyeeladeedu dadweynaha soo ridatay tahliwaaga qabashada doorashooyinkii golayaasha waxaasi oo duufaana ay xilli ay madaxweyne biixi ku wada furan yihiin iyo caalamkoo calaamad su'aal saaray isbeddelka dhantaalay Soomaaliland tii shalay sawirkeeda lama jeeran jiray waxa uu biixi midooyinkii u dambeeyayba waqtiga ugu badan ku bixiyay sidii uu bulshada indhasarcaad ugu ridi lahaa waxaa fashilmay isku day korneelku ku doonayay inuu ku tago waddanka Sweden halkaasi oo martiqaad ka helay siminaar ay sanadkiiba hal mar qabtaan xisbi ka mid ah asxaabta waddankaasi oo u ololeeya diinta masiixiga sagista siminaarkaasi ayaa waxa baajiyay kadib kolkii madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisu ay ka war heleen isu habar wacashada shacabka qurba joogta Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Yurub oo waddankaasi Sweden isku abaabulay mudaharaad ka dhanah biixi inkastoo isku daygaasi Sweden ee dhicisoobay ahaa mid madaxweynuhu ugu maaradeeyay jeedinta duufaanada dalka kaga furan haddana waxaa soo baxay safarka madaxweynuhu ku tegay jamhuuriyadda Guinea safarka Guinea muxuu kaga duwan yahay safaradii madaxdii hore Soomaaliland ku tagi jirtay Afrika maxaa dawladda federaalka Soomaaliya safarkani uga duwan yahay safaradaasi hore biixi ayaa bilowgii bishan ka ambabaxay gegida diyaaradaha ee Cigaal halkaasi oo transit ku sii ahaa gegida diyaaradaha ee Booli ee dalka Itoobiya biixi oo ka duulay qolka VIP ee Booli ayaa mar kale transit ku sii noqday magaalada Abidjan ee Ivory Coast halkaasi oo uu joogay saacado badan si uu uga sii gudbo safar qaatay 22 saacadood kadib ciidamada cirka ee Guinea diyaarad ay leeyihiin oo askarta lagu daadgureeyo ayaa biixi ugu timi Abidjan halkaasi oo ay uga sii gudbeen Conakry diyaaradan oo ah aircraft IAR 330 Puma kuna diiwaan gashan 3 Extrabal Air oo horana ka mid ahay diyaaradihii ciidamada iyo dhaqaatiirta Guinea u isticmaaleen logistigada iyo gargaarkii xilligii cudurkii banaa Ebola uu ka qarxay jamhuuriyaddaasi Guinea biixi ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Guinea Mamadou Touré halkaas oo wafdigu degeen hotelka Grand Central isla qaybta soo dhaweynta hotelka receptionka Hotel Grand ayaa sawirada aad u jeedo lagu wada galay iyadoo dadka looga dhigayo in biixi lagu qaabilay madaxtooyada looga taliyo dalkaasi intaynaan eegin ujeedka safarka oo ah sababta Soomaaliya uga jawaabtay bal marka hore aan eegno safarka sida wafdiga biixi dadweynaha ugu sheegeen iyo sida aanay u ahayn arrinta la isku hayaa mid la xidhiidha diblomaasiyad qaabkii Guinea loogu qaabilay madaxda Afrika iyo dunida kale baan ku horeyno kan waa madaxweynaha Rwanda Paul Kagame oo gegida diyaaradaha Conakry uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha Guinea Alpha Conde noocyada ciidamada durbaanada baanboyda gacan qaadka golayaasha wasiirada ee gegida dhexdeeda sida kaaga muuqata waa qaabilaadii lagu qaabilay madaxweyne Kagame kani waa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo isla heerkaasi loogu soo dhaweeyay Guinea wali waa Conakry kana waa madaxweynaha Faransiiska waa isla Guinea kanina waa boqorka Morocco Maxamed Kalixaad tani waa nooca ay u taalo madaxtooyada Guinea qaabkan ayay u dhisan tahay sidan ayay u eeg tahay tan weeye tan madaxda lagu qaabilaa waa farqiga u dhaxeeya hotelka Grand Central ee wafdiga Soomaaliland calanka dhigteen xagga kale Hotel Grand iyo rooga receptionka biixi loo goglay diyaaradda nooceeda iyo qaabka loo kulmay ayaa jawaab buuxda ka bixinaya kala duwanaanshaha darajada qaabilaadaha heer qaran gaarsiisan iyo tanbiixi sida ay darajooyinka maamuuska uga garbaqaawinta haddaba maxaa khaldan Soomaaliya maxay Guinea xarkaha ugu jartay Soomaaliland maxay arrintan si weyn ugu taabatay maxaa la qarinayaa
safarka madaxweyne biixi waxa ka soo shaqeeyay ganacsade kamida ganacsatada ka baayac mushtareysha macdanta Jamestown-ka loo yaqaano kaasoo magaciisa lagu magacaabo Xasan Diini oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland ujeedka safarka ayaan siyaasad wax shuqula ku lahayn hase yeeshee salka ku hayay isku xidhka Somaliland iyo sharaa'ig shisheeye oo kamida sharaa'iga Afrikada madow meelaha nidaamka kale taliska ay ka jiraan iyo meelaha aan nidaamka dawliga ah ka dhisnayn sida sharci darrada ah uga daabasho macdanaha kala duwan heshiis qarsoodi ah oo dawladda Guinea dilaal ka tahay ayaa la doonayay in sharaa'igaasi lagu heshiiyo qodashada buuraleyda Calmadow awda saaxib iyo gacan libaax dawladda federaalka Soomaaliya oo wali u taagla ka soo kabashada khiyaamadii dekedaha Berbera iyo Boosaaso iyo madaarkii militariba ku maqan yihiin iyo maqnaanshaha heshiiska dhabta ah ee dekedahaas iyo madaarka Berberaba lagu wada galay ayaa waxay go'aanka xadhig u jarista Guinea u qaadatay walaac laga qabo inaanay mar kale suurtagelin hanti umadeed oo xaqul qalin sababsata xogaha ayaa waxay tibaaxayaan in dilaaliin iyo shakhsiyaad ka tirsan dawladda Guinea ay qayb ka yihiin shirkadahaasi waxa la isku haystaana ay tahay iib maaha iyo waan iibinaya go'aankeeda ka hor dawladda federaalka Soomaaliya waxay waraaqa u dirtay sida xoguhu tibaaxayaan ururada wadamada midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD taasoo ay ka digayso inaanay si nabad suurtagal ku noqon karin faragelin Guinea iyo shirkado shisheeye oo ka ganacsada macdanta kuwaasoo fadhigoodu yahay Guinea warbaahinta dalkaasi Guinea ma jirto hal wargeys website radio iyo television oo safarka wafdiga Somaliland soo hadal qaaday kasoo warbaahinta dalkaasi bogoga madaxtooyada Guinea bogoga madaxweynaha iyo kan wasiirka qaarajiga Guinea midna laguma baahin wafdiga madaxweyne biixi imaatinkooda iyo ujeedkooda midnaba sidii horeba loogu baahin jiray wufuudii hore jamhuuriyadda Guinea safarada ku tagi jiray sida halkan kaaga muuqata taasi bedelkeeda safarka biixi waxa dib loogaga raadiyay taageero iyo muujin gudaha Somaliland gabilay ayaa taageertay odayaal burco jooga ayaa hambalyeeyay sidoo kale ururka hooyooyinka Hargeysa ayaa iyana safarka madaxweyne biixi bogaadiyay Guinea Conakry waa dal saboola oo musuqmaasuqa faqriga iyo ku tumashada xuquuqda aadamaha lagu xasuusto dhinacyadaasi qaarkoodna ay ka siman yihiin ama iska shaabahaan xilligan Somaliland waa dal aan la lahayn Somaliland xiriir siyaasadeed dhaqaale ganacsi dhaqan iyo istiraatiijiyad Guinea waxay wehel u tahay xukunka litalisa caasimadda dalkaasi looga taliyana waxa shaaraciyadeedu martigeliyaan gooriya alleyl ciidamada qalabka sida ee wadankaasi si shacabka dalkaasi aanay u nuuxsan Guinea waxay kaloo xarun u tahay shirkadaha suuqa madow ee macdanta Afrika muddo dhaafka safarka la kulmid la'aanta biixi iyo wafdigiisu aanay la kulmin madaxweynaha dalkaasi ayaa iyaguna wajigabax ku ah wafdiga Cornel Biixi isla markaasina sii xoojinaya jiritaanka ujeedka safarka ee la xidhiidha shirkadaha macdanta dawladda federaalka hal tallaabo ayay qaaday dhinaca warbaahinta taasi oo muujinaysa helitaanka xogta dhabta iyo ka gaashaamashada halista ku iman karta boobka dhaxalka mujtamaca Somaliland iyo casharadii laga bartay sidii dekadihii dalka laga yeelay qaarkood dawladda federaalka hal wasiir oo shaqadaasi leh ayaa hadlay dhanka kale sidee Somaliland uga jawaabtay Somaliland waxa iska daba hadlay tiraba 12 mas'uul dhammaantood halqabsigoodu ahaa 30 sanadood ka hor iyo dhaliisha marxuum Maxamed Siyaad Barre wasiirka arrimaha gudaha Somaliland wuxuu daliil ka dhigtay bog been abuura oo Twitter kaasi oo ay ku taalo fariin lagaga been abuurtay madaxweyne Farmaajo iyo ka waranka dawladii hore ee kacaanka wasiirka qaarajiga Somaliland wuxuu isna safarkaasi ku difaacay in madaxweynaha Guinea qaabilay madaxweynaha Somaliland isla markaasina aan laga hayn wax sawira wasiirka warfaafinta Somaliland isna wuxuu dhankiisa kaga qayb galay dhaliisha khudbadii madaxweyne Farmaajo ka jeediyay xuska 1 Luulyo iyo weerarida nimaan dunida joogay wasiirka biyaha oo isna Somaliland u hadlay wuxuu kaga qayb qaatay madaxweyne Farmaajo inuu adeer u ahaa madaxweyne Siyaad Barre Faysal Waraabe oo hadlay isna wuxuu sheegay in Farmaajo aanu baydhabo u dhalan xubno kale iyaguna hadlay waxay doodoodu ku idlay waqti tagay iyo cabasho ku waajahan dawladii dhexe burburtay iska wada barbar hadalka dhinaca Somaliland kuma jiro mas'uul kaliya oo difaacay halista ujeedka safarka ee dhinaca shirkadaha macdanta ka aamuska qodobkaasina waa kan keenaya
in 11 mas'uul isku si u weeraraan ruuxan maanta noolayn. dadka ayaa aragti ahaan qaba hadallada mas'uuliyiintaasi inay u muuqdeen kuwa madaxweyne Biixi lagala dabaalanayo wajigabaxa iyo fashilka ku yimi xogta shirkadahaasi macdanta oo iyaga gabi ahaanba u muuqday inaan la filayn xogtaasi inay noqoto mid la heli karo. xilligan bulshada Soomaaliland kolka la eego sida badankoodu ugu sacabatumeen go'aanka dawladda federaalka ayaa waxay muujinaysaa saameynta ay shacabka ku yeelatay cadaalad darradii iyo dhibtii looga sheekayn jiray oo kuwii ka sheekayn jiray ku kaceen tu ka sii darantay ka sheekayn jireen.